Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa idin salaamay dhammaan akhyaarta ku xiran janaalka. Mar kale kusoo dhawaada sheeko cusub. Waxaan idinka codsanayaa inaad videoga like inoo saartaan oo aad janaalka subscribe dhahtaan haddii aadan weli kusoo biirin gambaleelkan aad u furataan si aad u noqotaan qofka ugu horeeya ee daawada sheekadan soo gelino halkan. Inala dhammayso sheekada oo ka jawaab su'aalaha aan idinku weydiin doono qaybta dambe ee sheekada. Waxaa kaloo mahadcelinayaa dhammaan dadkii isku soo dayay ee ka soo jawaabay su'aalihii hore aan idin weydiiyey. Mahadsanidin dhammaan qof walba oo isku soo dayay. Sheekadeena ayaan bilaabanaynaa. Sheekadeena waxay ku bilaabanaysaa xaafadan aad u jeedaan waxay ku taallaa dalka Japan. Waxaa ku nool gabar yar oo weliba lagu magacaabo Tanukyo. Tanukyo waxay ahayd gabar xirfad leh welibana jilaa ah. Mar walbana waxay jiri jirtay riwaayado qurux badan oo ay ka helaan dadka daawadayaasheeda ah. Waxaa kaloo ahayd qof fani ah oo dadka u shaxtireen kartaa. Maalintii dambe waxaa soo gaartay warqad looga soo diray tuuladeeda. Waxaa ku qoran hooyada ayaa xanuunsan ee waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan aad u timaadaa. Ayadiina waxay go'aansatay inay safar gasho si ay u aado hooyadeed welibana ay u baxnaaniso. Way soo baxday ayadoo weliba lugeynaysa oo rabtay inay gaarto tuuladii ee hooyadeed deganeyd. Intay jidka socotay ayaa waxaa la kulmay nin hotel lahaa. Kadibna waxa uu sheegay inay hotelkan ku nasato caawa oo iska joogto. Balse waxay ku tiri maya ma nasan karo, waa inaan gudbaa welibana buurta aan ka gudbaa. Wuxuu ku yiri buurta halis ayay leedahay welibana waxaa degan abeeso weyn oo dadka cunta. Kadibna waxay tiri waa macquul inay joogto balse aniga inaan gudbo ayaan ku qasbanahay oo hooyaday ayaan u socdaa wax xanuunsan. Kadib wuxuu ku yiri nafsadaada baxra gelinine waa inaad caawa halkan iska seexataa bir subaxine aad iska baxdaa. Maya ayay tiri way ka diiday. Waad mahadsantahay sidaad ii waanisay, waan baxayaa ayay ku tiri. Intaa kadib Tanukyo way soo baxday. Ninkan waa uu ka walwalsan yahay gabadhan iyo waxay la kulmi doonto. Waxay soo kortay buurtii ayadoo weliba lugeynaysa. Habeen ayay noqotay. Ayadiina waa ay daashay. Intaa kadib Tanukyo waxay go'aansatay inay iska nasato oo geed weyn ayay hoostiisa fadhiisatay. Kadibna waxay tiri halkan isaga naso, markii aad nasatane xoogaa kadib iska bax. Waxayba maqashay cod. Kadibna waxaaba ka soo horbaxay naag dhar cad wadata. Kadibna waxay ku tiri adiga yaa tahay xaggeesa ka soo baxday oo buurtan habeen madow sidee ugu dhiiratay inaad soo aadid. Kadibna waxay ku tiri aniga Tanukyo ayaa la dhahaa. Intaysan hadalka dhameen ayaba waxay aragtay naagta hooskeeda oo abeesa ah. Intaa kadib gabadhii way isku naxday ayadoo weliba xaalad kala gashay. Waxay dareentay naagtan inaysan naag caadi ahayn ee abeesadii loo sheegayay ay tahay. Waxayna bilowday inay walwasho welibana ay ku fikirto qaabka ay ku badbaadi lahayd. Naagta ayaa u soo dhawaatay. Tanukyo xoogaa yar waa ay fikirtay. Ugu dambeyntiina waxay soo xasuusatay in naagtan ay disho bini'aadanka welibana aysan taabanin jinniga. Oo waxay istiri haddii aad tiraahdid bini'aadan ayaan ahay way ku cunaysaa, jinni ayaan ahay iska dheh. Kadibna waxay tiri aniga jinni ayaan ahay. Oo adiga jinni miyaa tahay? Jinniga waxaa lagu yaqaanaa inuu isbedelo welibana wejiyo kale la soo baxo ee mid tusi kartaa. Kadibna waxay tiri taas ma dhib leh, hal second ayaan ku sameynayaa balse adiga ay arkaya ma sameynaye xoogaa yar iga sii jeeso ama luuqan ayaan gelayaa. Kadibna waan isa soo habeynayaa. Intaa kadib luuq ayay gashay, make up ayayna marsatay ayadoo weliba iska soo dhigtay naagtii hortaagneed oo kale. Kadibna way ku soo noqotay. Waaw ayay tiri khatar ayaaba tahay, haddana maxaa kaloo isku bedeli kartaa? Kadibna waxay tiri wax walbo ayaan isku bedeli karaa. Kadibna waxay ku tiri oday duqa iska soo dhig. Tanukyo iskama waaline way baxday. Kadibna waxay soo gashatay mask oday waayeel ah. Haddana naagtii abeesadeed ayaa waxay ku tiri orod sidaad hore isku soo celi oo gabadhaadii hore ku soo noqo. Gabadhii way baxday, mask ayay iska soo siibtay ayadoo weliba ku faraxsan sidii u khiyaanayso naagtan. Sidii caadigeed ayayna ugu soo laabatay. Way kana ayay ku tiri ay fasax aan baxee wajigayga runtaana waa kana. Adiga waa kuga inaa mas tahay iska dhig maskaaga bini'aadanimadan iska daa. Kadibna waxay isku bedeshay abeeso aad u weyn welibana cabsi leh. Kadibna waxay ku tiri way kana abeesadan aad ku weyn ayaan ahay ma iga baqaysaa. Kadibna gabadhii intay fikirtay ay tiri haddiiba aad jinni sheegatay waa inaad tiraahdaa kama baqo abeesooyinka, saaxiibo ayaana la ahay. Okay ay tiri way fiican tahay balse haddii aadan aniga iga baqaynin maxaad ka baqdaa oo aad ka cabsataa ii sheeg.
kadibna gabadhii intay xoogaa yar fikirtay ay ku tiri aniga waxaan ka baqo waa lacagta haddii la igu soo tuuro waan ka baqaa xabsi zaid ayaan iisoo wajahday adiga maxaad ka baqdaa kadibna waxay ku tiri okay waan ku gartay aniga waxaan ka baqaa bes biyaha barafka ee aad u qabow kuwaas ayaan ka baqaa laakiin qofna ha iiga sheegin waa sir haye ayay ku tiri qofna ma kaaga sheegayo kadibna waxay ku tiri waan ku macsalaamaynayaa waqtigii inaan kugu lumiyo ma rabo macsalaama waan kaa tagayaa kadibna gabadhii ayaa tiri okay adni macsalaama aniga laftirkayga inaan baxo ayaan rabaa gabadhii kumaysan dhiiran inay meesha sii fadhidee waxay go'aansatay inay cararto habeenkii oo dhanna waxay ku jirtay safar iyo lugays kadibna way soo baxday ayadoo ugu dambeyntii qoraxdiiba soo baxday sidii u lugaynaysay waxayna timid xaafadeedii welibana ay deganaayeen qaraabadeeda iyo dadkii daqiinay waxaa arkay niman ugaarsada oo xaafada deganaayeen kadibna waxay ku yiraahdeen adiga sidee habeen madow aad u soo martay buurtan welibana ay deganayd abeesadii dadka cuna jirtay kadibna waxay u sheegtay inay abeesadiiba ku soo cayaartay ayna soo ogaatay daciiftinimadeeda waxayna u sheegtay sheekadii soo dhex martay oo dhan iyo weliba siday ula dagaalami karaan ayagiina baraf ayaba u diyaarsadeen oo waxay ku soo qaateen weelal ayagoo raba inay abeesada ka buriyaan meesha welibana ay dilaan kadibna waxay yimaadeen godkeeda oo waxay yiraahdeen abeesadii foosho xumeed ka soo bax godka waad arki doontaa maanta ayaa kugu dambeyso sidee ayaad ku soo gasheen godkayga ayay leedahay ayadane waan idin cunayaa dhammaantiin ha u maleylinayna idinka baqayo hal ayaan idin qoorsiibayaa ay ugu booteynaysaa banaanka ayay usoo baxday iyadoo isla nimankan dil kadibna biyihii qabooba ee barafka ahaa ayay ku shubeen ayadiina waaba ay ka baqi jirtay way qaylisay iga daaya ha idilina waan baxayaa waan ordayaa ha idilina ayay ku tiri okay ayay ku yiraahdeen ka bax meesha ayagoo weliba biyaha kusii wada soco ka carar way ku qayliyeen ayadiina waxay tiri uma soo noqonayo xaafadan waan ka guurayaa waa lay ogaaday saacadan laga bilaabo buurtan kuma soo noqonayo waan ka cararayaa haddii kale dadka way ogaadeen wayna i dilayaan laakiinse waxa ay khayaantay gabartii jinniga ahay dhahaysay ayada ayaa jinniyad ah wayna ogaatay sirteyda kadibna dadka ayay u sheegtay waa inaan ka soo aarsadaa kadibna way soo baxday ayadoo rabta inay ka soo aarsato welibana waxay iska soo dhigtay qaabkii bini'aadanka camalaha oo naag ay isku soo ekeysiisay kadibna waxay soo aaday xaafadii tanukiona waa tana hooyadeed ayay daaweysanaysaa welibana nolol fiican ayay ku jirtaa naagtiina way soo gashay xaafadda ayadoo raadinaysa tanukia waa loo tilmaamay gurigeeda oo waa kana ayaa lagu yiri ayadoo raashin banaanka ku karsanaysa ayay aragtay waaw ayay tiri gabadhii i khayaantay waa tana waa inaan ka aarsadaa waxay ka cabsatana waxay ahaayeen lacag soo maahin hadda ayaan lacag ku firdhinayaa cabsideedoo dhan ayaan arkaynaa kadibna waxay bilowday inay lacag kusoo firdhiso oo gabadhii ayay rabtay inay ka naxsato oo lacag inay uga naxsato lacag miyaa laga baqayaa u sheego dabaashaan way ku firdhinaysaa gabadhii markaas ayay dareentay inay naagtii tahay welibana ay soo arkaysay abeesada ahayd waxay bilowday inay jisho inay baqayso alla lacag waan baqayaa iga daay waaw waxaan ka baqayaa lacagta ay u soo tuurin ayay ku qaylinaysaa balse naagtan ay rabtaa inay khayaanto way ku sii wadaysaa ayadani lacagtii ayay ku firdhinaysaa welibana way qoslaysaa oo waxay is leedahay naagta waad ka cabsiisay waadna ka aarsan doontaa kadibna lacag ayay ku firdhisay dahab ah aad u badan aad bay ugu buuxisay meesha gabadhan ugu dambeyntii waxayba istiri lacagtan haddii kugu sii wado guriga dhan ay kaajijibinaysaa iska qabo naagta kadibna waxay tiri jooji lacagta haddaad igu soo wadid anigaba waan aqaanaa biyo qabow sidaan kugu shubi lahaa oo daciiftinimadaada inay biyo qabow tahay waad ka baqdid maya ayay tiri bes wax kale ma kugu soo tuurayo intaas way kugu filan tahay waan kaa tagayaa intaana way ugu filan tahay oo waa kaa aarsaday lacag ayaanba kugu soo firdhiyey kadibna way iska miirqaday maalinta ayaa ugu dambeysay tuulada iyo waliba buurtii wayna baxday dadkiina waxay ku noolaadeen nolol farxad leh oo cabsi la-aan ah ayagoo ka guulaystay abeesadii weyneed ee marna biniaadanka iska soo dhigaysay dadkana cuna jirtay gabadhanna waxay noqotay gabar taajirad ah oo hanti fara badan ay yeeshay guri qurux badanna way ka dhisatay tuuladeeda waxayna go-aansatay inay isaga noolaato tuulada welibana hooyadeed ay la joogto ayadoo iska daysay shaqadii horey u qaban jirtay ay ahayd jelitaanka riwaayadaha iyo dadka inay ka qoslisiiso welibana waxay heshay lacag aad u fara badan nolosheeda inta ka dhiman ku filan asxaabay haddii aad ilaa halkan aad inala soo gaarteen waa hubaal inaad ka hesheen sheekada oo liketa inoo saara liketa macnaheedu waan ka helay waaye ee like inoo saara channelkana kusoo biiri adigoo subscribe dhahanaya haddii aadan weli kusoo biirin
waxaan soo gaarnay qaybtii su'aalaha. waxaad sheegtaa nebi isagoo yar dab cunay. waxaad sheegtaa nebi isagoo yar oo cunug yar ah dab cunay kadibna carabka saas uga gubtay. fadlan isku soo day oo qaybta commentiga uga soo jawaab. insha Allah waan akhrin doonaa commentiyadiina waana ka jawaabi doonaa. qofkii saxayna tig ayaan u saari doonaa insha Allah.